السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابته كحرن جانا قلافور أوفيشال إيو دادك كسو حرمي دونه waxaan idin leeyahay waqtigu ha idin wacnaado waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal anoo waxa ku dhex jiro baraha bulshada anoo ku dhex jiro ayaa waxaan arkay wax iga yaabiyey marna iga farxiyey. ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay haddaad xaq islaameed qabto intaan lagu xisaabin is-xisaabi. haddaad dad dishay oo dhiig islaam kugu jiro intaan lagaa xisaabin adig is-xisaabi. walaal dhacdo 52 sano ka hor dhacday ayaa maanta la kala qaatay diyo. ninbaa wuxuu dilay 1971 ninuu dilay ninkiina waa ka dhuuntay بعدين هذا أو كنتم إلا بس سنة كسوريته مركو وحود دمعي إنه ديادي إسكبحي يعني إذن كهر دعين واحد إلى الدعوتان قصدان إيا سيدي أسعطو إيو نظام كي تهي وعبر قادشو ودعضو رفعي نادري ويال إنت بني آدم إيا واحد الشيء أم واحد الشيء إنت لو حسابي إس حسابي يعني إذن كهر دعينه بل ولا ليال نلا دعوضا waxaadna isweydiinaysaa wax dhacay 51 sano ka hor in la ogaado waqtigan. dhacdadan la yaab kale ayaa ka dhacday deegaanka Soomaalida kadib markii la ogaaday cidii dishay oo la dilay 50 sano ka hor isla markaana uu qartay ninkii dilay. dhacdadan ayaa ku cusub Soomaalida dhexdeeda waxayna ku tilmaamaan midugub balse waxayba furaysaa buug iyo taariikh cusub oo ay dhif iyo naadir tahay in la arko marka la joogo Soomaalida dhexdeeda. tanina waxay tusaysaa toobiyasan labada reer ayaa ka heshiiyay qadarta ku timid waxaana la isla qaatay in la bixiyo magtii dil dhacay 50 sano ka hor. ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay faahfaahinna ka bixiyay siduu dilku u dhacay Aadan Cusmaan oo ninka gacantu ka dhacday. aniga waxa la yiraahdaa Aadan Cusmaan bariya anagoo dhalinyaro yaryar yaa geelna laga xaday afara xagaagidin jilaalkii hore kulka xadeen in xagaagidin ku jiibay anoo laban waan soo go'ay waan soo weyn anagoo soo weyn amaano kor daaqay caruur la joogto inaan ka xasanaan deena isku dayna caruurtii dhawaaqday yaa farsanana laga soo kacay waxa ilaahay qadaray inuu ka socday meesha xabad baan kormeeyay waxaan ay ka beenay ka joogsado ninkan dhintay waxa uu soo horreeyay mana joogsanay dhagax weyn buu kalkoreeyay waa ku kala hadana halka ugu dhuftay musigtay iyo uga dhuftay هاشوان مسكالتنا وان دافنا حبادي دماني دولك بالغلف إنك يجوكس حبادي دولك كل عادي ما كروك هذا حاجة كذا عادي واحد دمبو تبص يواحد نوي ما نعرف أنا جاي أنا سكامس لأن يرى ربنا لو كنت ما كذبيس أنا لو كنت كنت مسكو يقدميس maanta umba fursad haysataa dhiigaanta badan qarsoona sheeg ba umba niyadeyda gashay waxaan dareemayaa inay aniga iyo reerkii uu ka dhintayba inay wanaag noo tahay. geesta kale waxaa dhankiisa ka hadlay Sheekh Maxamed Iimaan uu dhalay marxuumka la dilay. aniga magacayga waxa weeye Maxamed Iimaan Aadan waxaan magac ku caan aleeyahay ibnu laboon. aniga magacaygu sidaa weeye dhacdadan waqtigii ay dhacday anigu 2 sano ayaan jiray isaga sheekha maalinkii dhaweydeen isu nimid iswarsanay taariikh ahaan 71 inay ahayd ayaan isla taqriirinay. waqtiga anigu 2 sano ayaan jiray wax ubad ah oo uu aabba ka tagay waqtiga aniga iyo gabadh iga weynayd baa jirtay gabadh iga yarina calooshay ku jirtay iyo hooyo intaasaanu ahayn alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dhacdadaasi sidaa uu isagu hadda uga waramay inay u dhacday ayaanu annaguna haynay laakiin iyagiina kolkay dhacdadu dhacday wax raadkooda hoo damba lama arag annagana wax shanqadhahoon maqalay mayna jirin.
iyadoo sidaa ku kala aamusan tahay oo muddada intaa la eg laga soo wareegay ayaa wakhtigan dhoweyd ee hadda hawshu ay soo baxayso ayaa sheekh iyaga ohoo uu sheekhan warkii ay isla qaateen baa warka soo gudbayay sheekh uweys la yidhaahdo jasaahu llaahu khayran ninkii uu u soo sheegayoo reerka ahaabaa aniga ila soo hadlay isagu markaa uu aniga ila soo hadlayo uguma uuna tala gashanayn aniga aabbahay nin dhintayoo reerkaas ah adi wax aqoona ma u leedahay intaa keliyata unbuu ii soo weydiinaya adaa dadka laga yaaba inaad igu dhaanta aqoontiisa dee bal tilmaan baan idhi taariikhda laguu sheegay iyo dhacdadu siday ahayd iyo wixii ay qoladu kuu soo warrameen wixiibuu warramay markuu warramay baan dee waxaan idhi warkaa aad sheegaysay wuxuuba ku qiyaasan yahay sheekhii aniga waalidkayga ahaa allah u naxariisto deedna sidaasaa raadku uu isugu yimid markii dambena aan isugu nimid oon ku kulannay oon dhacdadii isla xaqiijinnay arrintu sidaasay ahayd aniguna wakhtigaa da'daasaan jiray dadkii warasada ahaayo uu ka tegayna intaasay ahaayeen maantana alxamdulilaahi rabbialcaalamiin isagana waxaan leenahay hadduu ilaahay towbadii waafajiyey oo wakhtigaa ilaahay xusuusiyey intayna naftu ka bixin inuu xaqii ku qarsoonaa soo muujiyo isagana ilaahay khayr ha siiyo towbadana allaha ka aqbalo ayaan leenahay ummadda kale ee muslimiinta ana dhammaantood waxaan leenahay xuquuqda kala maqan ee ku kala maqan shakhsi waliba isagiiyo khaaliqiisa rabbigii abuuray baa is-og isaguna intuu xisaabtamo intaan maalinta xisaabta la gaadhinaya ilaahay hortiisa lagu xisaabin doono inuu ruux waliba dhacdadan ku waana qaato oo annaguna aan noqonno kuwii qudwo wanaagsan ummadda u noqda ee dadku ay khayrka kaga daydaan inaannu noqonno sidaasaan rajaynaynaa ugu dambayntii tolkii labada dhinac ayaa ka warbixiyay arrintan ugubka ku ah soomaalida dhexdeeda dhacdadan intii iidda ka sokaysay iiddii inoogu dambaysay maalmihii iiddii baanu dhacdadan ay soo shaacbaxday oonu maqalay haddaanu maqallayna waanu soo dhoweynay si aad iyo aad iyo aad ugu faraxsan baanu u soo dhoweynay waxaananu ku talagelaynaa sidaa iyo halkaa imika joogta meel kasii wanaagsan inaan gaadhsiino sidaasaanu aad iyo aad ugu talagelaynaa waxaanu ku heshiinay diyadii iimaan aadan uu lahaa oo ah 100 neef oo geela inaan iska bixino maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 12aad 1443 taariikhda hijriga taariikhda miilaadiguna ay tahay 14 bishii 7aad 2022 taariikhda waddankeena Itoobiyaana ay tahay 7 bishii 11aad 2014 waxaa isugu nimid arrin aad iyo aad la yaab leh oo runtii mucjiso nagu noqotay oo ah iimaan aadan oo runtii caalimka weyn ee Soomaaliyeed ama ragga culimada waaweyn ee Soomaaliyeed kamida aabihii ah Sheekh Maxamed Iimaan oo inta badan laqabkiisu ibn Labuun uu yahay oo horay aanu maqalay in la dilay meel loo raacana la waayay in uun maanta aan isugu nimaadno isagoo la garanaya ciddii falkaa geysatay iyadoon cidina ku khasbin ayaga xaggoodana ay ka timaado sida aad soo wada daawateen walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inta xaq islaameed gashay ama inta wax dishay ama inta wax haday inta yawmal qiyaamo lagu xisaabinin isxisaabi حكون نقطة عبر قادشو حكون نقطة وانو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلك أتكداونا يسارنا وجنا قنا فور أوفيشال ولا لوان نسي وداني هورينو سي ودا سبسكرايبك عدسيا سبسكرايبك أيان الله هاي ولا ليال وادكم هسنتين هل كان تاغنا واد إيجاسي ودان عد الله عدي فرطة إله هني حافظه ولا سبسكرايبك هنوغا إلوبين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته